haddii qof dhabku jeclaado intuu dhaxan ku fadhiisto halbowla hadii ka qaadin dhanka wadnaha ku seexshoogo haddii qof dhabku jeclaado intuu dhaxan ku fadhiisto halbowla hadii ka qaadin dhanka wadnaha ku seexshoogo دمعدو كداري دبكو باضي عاشقاغو برواقادو دحتوغانا دقاها كفوري سماها ودقاها دقاها كفوري سماها ودقاها هاي ويلكيجي adiga jijaleecan iska dhaaf waxa la rabaa inaad wax cuntid iyo inaad caafimaad martido adiga qaadadan qabso badarkaan cun قعدت كل كم صوتك أنت قلي برا وساسا لقاروا نكينها أم بحني برا ونين كورونا تساسا كاروا فريت اسبطالك وجيك سان دبي مر لانك بحنا نكين نوت وادكم حسن تاي مادام دي مادي اسبitaalka dawaa laga soo saaray sidee tahan hada gurka ku gambaleenaya maadsanid way adiga ma ku faraxsan tahay ha waad ogtahay gaanho ani si fiican ayuu ila dhaqmaa وأنا في عن وأنا أرن لو فرح كرا وحن كلي ورا بعدين إنه كواركو ورجع فرحت كنا له مدي ذيك عليه aniga waan faraxsanahay waxaan rabay wajiga kaliya arko adan wad iska bixi kartaa
waaya mudane waa mahadsan tahay mudane waxaan kuugu caawiyaan gaanwo ayaan rabaa inaan la kulmo magaca mii sheegi kartaa mudan adoo raali ah magacayga waa John Q ah mudane John Q ayaa raba inuu kula kulmo hadda xaaladaada waa sideena aniga waan fiicanahay waayahay soo fariiso waayahay hees miyaa samaysayn haddana haa maxaan kaloo isbitaalka ku hayayba ma ka helin miyaa rajabeel ayaad igu ridda aniga waa kay qofka lacagta waxaan ka bixinaya midda hore middan waxba kale ma doonaa waan arkaa waayahay mar kale waanaad ku laabata adiga maxaa wax wanaagsan ayaa laga filayaa marwa shirkaddan inay liidato waqtiga cashada jaanis ma haysaan adiga waad iga soo hormarteen be John Q waa ku salaamay waan ku faraxsanahay haddii aad isbitaalka ka soo baxday laakiin xaaladaada ilama fiicna adigaa lagaga baahan yahay inaad ka taxdirtid maxaa yeelay saaxiibkaaga waa soo maahan waa sida afarteen haddii aan hal mar wada guursano sidee u aragtaan arasku fiicnaanayaa yaa qaadiga dhibka naga dhaaf aniga John Q asxaab oo kaliya ayaan nahay loo qofooda qoyr socda haddii ay midoobaan waa arrin wanaagsan mise jacaylkaaga hore weli ma ilaabin adiga waa ilaabay qoftaa jecleed magaceeda muxuu ahaana waxaas hadda inaan ka hadalna ma wanaagsano maxaa yeele wax hore ayay ahaayeen waxaa laga yaabaa ilaa iyo hadda inay dareen ku haysa iyada bise intaan ka badan hadalka ha nagu qodqodin maxaa kugu dhacay ma xum waayahay laakiin xafadiin qabanqaabada waad qayb galaysaa soo maahan asaga kuma qasbana laakiin ugu yaraan saaxiibkiisa waa inuu caawiyo asaga jansi arrintan aan ugu soo fikir aniga birta 7 saac waan haddii imaadaa maxaa yeele waxaan rabaa inaan kaagala hadlo arrinta heesta haddii aad jaanis haysid waayahay adiga balan maa lahaydne haa gaanwo ayaa u baahanahay laakiin feelkan adiga muu ku jirtid bee saaxiib gaanwo haa balantania xooga u kaad shir ayaan galayaa waayahay waxaan rabaa inaan idin sheego taleefanka annaga aan soo saarnay wuxuu seef garanayaa 20 ilaa 30 haysood mideeda kale taleefankan ma ahan taleefan caadi ah maxaa yeelay wuxuu seef garanayaa 500 oo sawir ah qofkii arrinta dadka qabana diyaar yaan way weydiin karaa hal su'aal ayaan ku weydiinayaa waayay soo daa heesa aan rabno inaan taleefankeenu ku seef garayno fanaaniintii heesaas laa sharciyan waa inaan ka soo saxiixanaa si ayna sharciga xaggiisa dhibaato noogu imaan annaga waxaan leenahay avocado iyo noo qaabilsan dhanka sharciyada waxaad ogaataa shirkadaha heesaa soo saaray inay leeyihiin xaquuq waxaana loo baahan yahay xaquuqdooda inaan ilaalino anaga haddii kale dhibaato ayaa noogu imaanaysa dhanka sharciga waa in xal aad u heshaa arrimahaas haddii kale dhibaato way nooga imaaneen waa run waayahay mudane
صاحب جو ها laakiin aniga xogaa weli shirka ayaa ii dhiman meeshaad isii fadhi وياي wax badan miyaa ii dhimana ها way saxada badan maxad meesha igu lugoysay maxaa dhacay meeshan waan isaga tagtaa weliba daadaa meesha meel ka dheer ha waan ilaaway adiga kontraadina ayaa ku celinaysa soo maahan okaadi marka waa xaqaad anaga nagu lahayd saqajaayo maxaad ku hadlaysaa maxay waxaad samaynaysid isii dawriya marka hore waxaan diiday xanaagayga inaan ku tuso mar haddii aad xanaagayga aragtana adiga waad dhimanaysaa ogow kow ayaan kaa siinayaa intan aniga waxaan soo celinaya waxaan diidinaa dhiiggayga inuu sar u kaco sabarka ayaan kuu muujinayay saaxiib maxaa sidan u samaynaysaa oo ma ogid miyaa daacad miyay kaa tahay ii sheeg sow joyong oo kaalay idinka labadiina khiyaanadeeda waad ku raaxaysataan miya khiyaanadeeda waad jeceshiin soo maahan runaantii aniga waxaanba ka shallaynayaa saaxiibtinimadaada xunteedan ku kalsoonaa saaxiibkayga gamow haydeen berito farantigeliskayga waa inaad imaadaa jiliinkii beenta ahna aad meesha ka sii waddaa oo aad horey igu waddeen aniga weliba adigoo matalaya inaad xafladdeeda ku faraxsan tahay waxaan kaloo kaaga baahanahay biyaanad inaad gacantaada ku garaacdo weliba adigoo tumaya heestii hore aad qori jirtay adigoo farxad iyo rajaynaya ayaad tumaysaa kadib meeshan waana isaga tagtaa waxaadna aadaa meel aadan weligaa ka soo laaban karin haddii aad middaas samayn weyda waxaad ogaataa inaan ku dilayo wixii aad rabtid ayaan kuu samaynayaa halkan waa iskaga tegayaa laakiin arrintan dhacday labadana nagu ekaato ma rabo qof kale arrintan inay ogaato hel miyaad ka walwalaysaa adiga xaaskayga aniga oo keliya ayaa ka fikiraya juwayong حتى واحد عذر مي سمعني ست ميان هذيك
boqoradeeda maanta aad ayda qurux badan tahay quruxdaada ayaa indhahay tiraysa maanta dhowl caddeynta waanaad badisaa maxaa yeelay maanta waa maalintii ugu farxadda badneed dunida waad fiican tahay maanta oo dhan waa inaad sidan u qosashayaa mahadsanid maxaad igu mahad celinaysaa sidaad mar walba iigu kalsoon tahay oo weliba wax walba aad iigu samaynaysid adiga dartaada wax weliba ayaanu samaynayaa aawe ababo aniga fudeedkan waa u dhashay ma ogtahay hadhow waa wada sheekaysanaysiin labadiinne ordaha martida banaanka soo dhaweey ord adiga u tag soco waayahay anigaa soo dhaweey hay soo soco hee ka gaalka uu ku salaamanaya hay iya saale maa loo qorxoonaay ababo khataraa tahay ah saaxiibkee gaamu waa nuuro saayan ku dhahay qataraan ku dhahay labiskaa idili hambaliyo mahadsanid saaxiib mahadsanid ya saaxiib qaaliya hambaryo waad mahadsan tahay laakiin adiga waa iga hubtaa ma oo gaamu saaxiibtaa mar kale inay dhuumayeen oo xafladan si qurux badan ay ku dhacayso waa kaftamaa saaxiibkay horaa ka xanaaqaya xilliga farxadda kaftanka waa furan yahay ma ogtahay laakiin heen aw markoybe adiga hayn waa inaad u hambaliyaysaa waani salaami soo dhawow hay saaxiibkay maxaa kugu dhacne calosh ma laga hayaa macnaha waxaan ka wadaa hayn quruxdeed markay arkay anig dhan waa maqsuudi adi xataa waa qurux badan tahay adiga shactiroolaa tahay ma ogtahay waad qosol badan tahay hayn sooma qurux badnana maanta zaa'id way quruxdeeda soo maahan aan ku weydiiyey adiga hees quruxdeedu qalanta ma soo samaysayna waxaan ku leeyahay hambalyo mahadsanid haye hambaryada soo idiima dhammaana socdahay ordaha dadka u taga soo dhaweeya marka ordaha annagana waa soo bixinaya socdahay ha taagnaanina meesha Waaye. waaye waa bixinaa haye abuu idinkana socdahay siijin ma imaatin iyada ord adiga soo fiir bax waayahay anna waa raaca sug ganwo dhegeyso hay farxad si kalka cilaa labteeda ugu soo go'day ayaan labadeena idin rajaynayaa haddii aadan noo rajayn xitaa annaga farxad waan helaynaa heestoo keliya ha ilaabin adiga ha soo dhawaada soo dhawaada soo waan dhawaada dhownahay waad mahadsan tahay bro mudanayaal iyo marwooyin haddana faraanta geliskaa bilaabahay lamaanaha aloo sabciya si qurux badan
markaana waxaan soo dhaweynaa John Q oo ah gaan uu saaxiibkiisa ugu dhow biyaan ayuu halkan oo garaaca lamaanaha ugu talagalay loo sabciyo